محوها جدك اسكو باباي مغالي دي كجيران كرايسس runtii aan ka cabsi qabna hadda ayuu bilaabanaya waxaan rabaa inaan idinka mahad celiyo wanaaga aad muujiseen niyad wanaaga waxaan rabaa fursaddan inaan maxooha laba qodob aan uga faa'iideysto waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Hiiraanka oo maxooha ii sheeg dhinacay doonaan baa ka soo jeedaan inaan u sheegno dadka reer Hiiraan waa dadkeenii waa iswadanahay walaalanahay ehelaan wadanahay waa isku soo wada qaxnay iyana wada saabeeyay waxaan jeclaysiya iyo wax maxuu ahay kala fuquuqida iyo wax la soo kala dhaweynayo midna ma jirto idinkuna taa kalsooni ku qaba maxuu ahay aniga shakhsiyan dadkii yaqaana waa yaqaanaan mar rabo aniga hadda kaadaan joogo oo mas'uuliyaddan haaya in laygu sifeeyo nin mataqaanaa ummadiisa kala jeclaystay oo u kala eexday oo qaar soo dhaway oo qaar fogeeyay inay hadda taariikhda ii gasho diyaar u mihi arrintaa kalsooni ka qaba muxuu ahay leedika shaafiyo qodobka labaad oo aan rabo inaan muxuu ahay aan u faa'iideysto waxa waaye wixii anaga na soo gaaraa laba hab ayay nagu soo gaareen cidii tiraahda sida hormuud oo kale dahabshiil oo kale diyaasfurooyinka qaarkood waxayna anaga gacanteena ku haysanayna oo dad soo dirsanayna oo dadkii kula hubsanayna waxaan diyaar u nahay in security-ga iyo logistics-ka iyo baabuurta iyo dadkii la shaqeyn lahaa inaan u diyaarino dadfad maaha inay anaga wax nagu soo wareejiyaan in fact haddaysan nagu soo wareejinaaba noo dhib yar sababtoo ah inaan anagu hawshii oo dhan aan qaadano waxaa ka fiican in muxuu ahay ii sheeg nalala shaqeeyo ciddii noo timaada ama wax noo soo dirtana guddiyaan u magacaabnay oo guddiga heerka qarankaa la falgala howlaha iyagaa wata muxuu ahay lacagaha iyagaa akoonto ku shubta annagu muxuu ahay maamulkii un baan wakiil ka nahay ganacsataa ku jirta haweenaha ku jira waxaa ku jira culamaauddiinaa ku jira dad xamarka yimidaa ku jira dad reer galweynaha ku jira arrintaasna ayagaa lagala xisaabtami doonaa annaguna oversight inaan ku joogno ayuu howlkeenu yahay annagu waxaan toos u maamulaynaa oo toos muxuu ahay gacanteena ugu soo dhacaayo wixii naga soo gaaray dowladda dhexe ama naga soo gaaro maamul goboleedyada aan walaalaha nahay oo ayaguna iyagoo noo sameeyey inkastoo weli aysan wax naga soo gaarin wixii naga soo gaara waxaan u isticmaalaynaa laba arrimood meelihii hay-aduhu ay ka tagtagaan oo ama dadkii xoogaa la dul maro ama meelihii la geli waayo in maamulku muxuu ahaa ii sheeg mataqaanaa daardaariyo meelihii wax kasoo noqnoqdaan masalan shaloo kale kormeeraan xaafadaan tagnay waxaan aragnay in xoogaa musqulaha la qoday ay dhinac u badan yihiin xaafadaha qaarkood ay mataqaanaa laga tegtegay waxaan amarnay in musqulo loo qodo haddii xaafad aan tagno xoogaa raashinka aan la gaarsiin inaan anagu gaarsiino iyo inaan u isticmaalno amniga oo aan adkeyno magaaladii oo dhan baa isku soo kacday isku soo wada qaxday boliis iyo ciidan iyo shicib iyo wixii oo dhan waa la isdhexdaafsan yahay in amniga la sugo amniga la adkeeyo ciidamo la howlgeliyo wufuud badan oo muhiim ah noo timid VIP ah madaxweynaha noo yimid barnaamijka noo yimid inaan amniga adkeyno inaan logisticadii mataqaanaa aan ka shaqeyno waxyaalahaasaan u isticmaali doonaa annagu waxaan diyaar u nahay wixii na soo gaara sideeda inaan muxuu ahay ii sheeg dadkii ku gaarsiino labadaas arrimoodaan rabaa inaan fursaddaas anigu faa'iideysto waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo biidni illaahi tacaala waxaan waa laga bixi doonaa biyahan waa dhammaan doonaan waddanku caadigiisa ku noqon doonaa laakiin dadka diasporada ha ka soo jeedaan hirshabeelle ama soomaalida guud ahaan waxaan ugu baaqayaa waddankiina inaad maal gashataan waddankiina inay laxajecla idinka gasho inaad timaadaan warshada ka dhisataan kuwii hore yiilay oo balcad iyo muxuu ahay jowhar iyo kawaankii beledweyne iyo mashruuc yaroo xabaqo in aan samayno aan rabno cadale oo aan rabno warshad tuuno inaan u qalqaalino warshiiqo warshad sardiina aan u qalqaalino yacni waxaas inaad maal gashataan muxuu ahay internetka waxaan rabnaa inaan xamar ka soo jiidno aan etoobiya gelino inaad maal gashataan yacni waddanka adinkaa iskale lacagtii iyo caqligii iyo cilmigii haddaad yurub gashataan oo dubay gashataan oo nairobi gashataan muxuu ahay ii sheeg oo aan mataqaana dad maatiya iyo dad dhibaataysan aad isaga tagtaan hade waddankii ma hagaagayo annagana waxaa qasab nagu ah inaan sharciga adkeyno kala dambeynta adkeyno cadaaladda adkeyno waxaasoo dhan hadda waa naga tabar daran yihiin been idiima sheegayo laakiin biidni illaahi tacaala jidka aan rabno inaan qaadno waa jidkaas si qofka soomaaliga ama hirshabeelle ha ka soo jeedo ama meel ha kale ha ka soo jeedo ama xamar ha ka soo jeedo
qofkii maal gashanaayo oo investor oo loo yimaado oo shaqo abuuraayo inaan gacmo kale kusoo dhaweyno wadankiinii inaad ulaha jeclootaan inaad odayaasha iyo hooyooyinka iyo dhalinyarada inaad fasaxyada soo dirtaan in qarashka wadanka la geliyo intaasaan rabaa inaan idinku baaqo dadka dhibaatada maalinkaas taagan keliya maaragtay laguma mashquuliyo waxaanu inaysan soo noqon in laga hortago ayaa loo baahan yahay ugu dambeyn waa idin salaamay ilaahay khayr ha idin siiyo dadka yaboohay iyo dadka xoolaha bixiyey iyo dadka naga welwelay waxaad haysatiin allah idiin barakeeyo xoolihiina allah idiin badiyo ilmihiina ilaahay mataqaanaa baariha idiin ka dhigo wadanka noo imaada waa idiin baahannahay lacag keliya maaha inaan idin aragno ood noo timaadaan oo talada nala toosisaan ood aqoontiina noo keentaan oo injineerada iyo takhaatiirta iyo kalkaalayaasha caafimaad iyo agronomistayaasha iyo veterinariga iyo kulli waa u baahannahay intaasaan idinku soo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsantahay دكتور عبد الرحمن عمر دكتور عناي ولينو أسنه كلمة كثيرة waxaan garanayaa hiiraan waxay ahayd ubaddaxaadka Soomaaliya waqooyi bari mudug galgaduud meeshuu rabo qofka u socdo galinka shanaad waa inuu beledweyne maraa heer waxaa la mari jiray horticulturalka yaalay hiiraan iyo dadka ay isku jeclaayeen in xataa kan qallaafa ka yimaado Itoobiya xamar ma gaari jiray wuxuu ku hakan jiray beledweyne inuu dago waayo Soomaalida hal mid baa jirto waxay isku qaldaan laban arin dhaqan iyo dhalasho dhaqanka waa ninka meesha uu ku dhasho ku barbaaro dhalashadana waxaa la yiraahdaa isir ahaan buu ka soo jeedaa marka Soomaaliya ilaa dhaqanka ay ku xoojinayaan oo qofka meeshuu raba ilaahay ha ka yimaado uu wadan destinigiisa uu noqdo inuu meeshaas ku noolaado wuxuu u baahan yahay in la soo dhaweeyo in walaal laga dhigto inuu daris dhaba yahay halkan joogay marka waxa inii sheegayaa magaaladaas ciidamada Soomaaliya oo dhan baa lagu tababari jiray gobernatora mid walba midku ka qiimo badan yahay ayaa la geyn jiray guddoonka waxbarashada sidoo kale iskoola media inferiore markii elementary laga baxo waxa loo soo aadi jiray xabar meeshii ugu horeysay gobolada laga furay bay ahayd magaalada beledweyne inkastoo wasiirkii arrimaha bulshada جو علي جمعة الله ونحرسته وحوها وحبرشة عافماتك شقدي شغالة وحان قرنا يا والنسيب أهلي أنا ينلي هذا صاحبك يوم ودي دكينا دكتور باكستان وبدياتك وجوين سومالي أها وهرموتك كلية عافماتك أها أيون رسو درسي وحو مقلي أفلها رأذيرك إنو يهي هلا يقول آمنة الشيخ علي جمعة هذه أنت شوكتها وأنتجي مركز يقول أذير وحكى لك عمر ربو قلب كاستبريشن كادي عبريسا ويلكم باير ما دام إنه قضية وقيمة لأوها سيدا سكر وحد قرنيسا dadka meeshii ka soo wada jeedaan inay aad iskaaga qiimo badan yihiin marka waxaan ku talinayaa anoo dhanka professionkayga ka hadlayo waqtiyada arrimahan oo kale ay dhacaan waxa loo baahan yahay gurmad dhab ah waayo biyaha xun oo la cabo kareecada iyo kaadi dhiigga ka dhasho wabiyada waa waxa qatarta bini'aadamka ka nafsadooda marka waxaan leeyahay wasaaradda caafimaadka iyo dawladda guud ahaan inta qaatiirta Soomaaliyeed oo tirada badan oo aan hadda xamar ku soo arkayo nin walba oo private ka furtay ha u gargaaraan walaalahood dawladda ha ka hayso ha ka soo shaqeeyaan ugu yaraan week inta ay dadkan ka baxayaan dhibaatada adag ay ku dhex jiraan taas waxa loo arkayaa xaq bini'aadanimo xaq Soomaalinimo marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa in sida aan maanta u soo gurmanay aan u soo gurmano magaalo kastana looga soo gurmado walaalaheena aan si dhab ah oo niyada oo bini'aadanimo ku qotanta aan ugu fiirino waa maasantiin wax yar oo dhaxtaal ah aan gashanayna Khalifa Usmaan Cabdi Sayd Khalifa oo dad badan inaga soo dalbaday heestii hablaha geeska Afrika oo uu abuuray miraheeda abwaanka weynaa محمد إبراهيم ورسامي هدراوي والآن خليفة واحد
مقامشين مقومودين مقاقحين مقبلولين منقورين وبين مقابل هالكيين قويدين ماندين جيرا راضيدين من كان قرداك شو وبين ولي منقونا نديني ورتئني من كنت ديو برنقو قليك ديدو كنت ديكي أقونو وبين قرب دار لهم با وبين قول هذا الكون وبين قبلين عقر عدي سيدا وبي قنانو عركة قدل لمالو بييكو قاحديو وبين قد يدي قصود دقيي قدر صدي قفاعيو قولا ما ديريرو قال لي شبين هبنكي وبين قبقعن مسور رقيي وراعيو قلولكي كنت حدد كمو جري دولك وذا قلاليو وبين قدرها مكاقا تقيي وبين أفرتا قديديي وبين لها ليقو قرن شريي قرمشة الدقالكيو قولفتيو علادها قوبها النفواقيو هالكان لايسكو قورعو والكا قرد اللايشدارو هاتان دماركو قويا قوبابوكي عينين سيدا قلو قاديلو اللين يسي غيركي برتاكو مقومادي يا سمو برواقا دولك جيدو تشيفان هاتي جيدي لاغو فرو اللي يارو اسكورتا كردن عافيتكي دولوين كوكولانتو عكتا غرانغر تيديو إسو جيسا تشيبكو غوغوس كالوغيو جدا صعب كالو جارو قبلها وقارو قرشة عدكودا قرشة عدكودا قف قبو بيك عيسو يلبس كيو مشحردا كما كايلاشي الدان قباري بودين كان لقى جرين قده سحابيو عيان كان لقى قرين مرود مرقر كوحيران اللي ينقري دكسون مالي قادها بينكي اللي ذا قلقلشيو قد قدون كرداليسو أديجيو قواقا حد بدينا أقورو بركين تتقبضيو كاشان كديغا تاي أدان قد هالدالي مقالو الدنيا ذا ننقوني سعودكو مرو قرشو ديربا ننكرقا وقودينو مقالو الدنيا ذا ننقوني سعودكو مرو قرشو ديربا ننكرقا وقودينو يدا قدونكي يو كرحيا نفتاديو قاديد كرهبكي يو قرقر شاقا نغطو arrin kula gorfayse haddaan gaari kula jirin
وحانوغا قولي ويوا برباري هداد قبر عدانيو دولك قالوا كنتان هداد قبر عدانيو دولك قالوا كنتان مذانكو قرابين جبتكا قرقارين حلكا كلا قوبانين قعال هداد كديقتان قوميس الشيا هداد قعنتا قبطان هبلهينو قريو قيان ييكسو قيان وعشدا حنوك لي وحنوك قولي ويوا برباري قبي وحيكو دقنتا قرب وحيكا ديقتا قلد وحيكو ديفتا سما وحيكو قادا قولوا لذا حوينكي هنا قاركا هبلهي قبوبيو قيريدا كسوغي جيري هبلهي قرايسكيو غيران جيري قنتينا دا هبلهي قوئيو داير سيدا بارغب قولن قولي دحدا حاريكو قوين جيري هبلهي قرارها قاتن صعود كلافيها سيدا قريقا عيديد قلبي جيري الله بدا هبلهي قن إيبار إشا قعانو إفتا قماني لدي جيريني هبلهي قهاديو قرسن جيري قفوي هذا الكودو قابنا هبلهي تلدا قنكيو قنتي جيري حشوتكي عدي قاچون ليتان أمي قدل صومان عدياني قرن جيريني هبلهي قمان فراس يوغيلا وبكا قردون كبحن جيري هبلهي قرقاريو قوليت كعورن جيري هبلهي وحقالي جيري هبلهي وحقوين جيري هبلهي وحقودي جيري قلت لولا أي عيب هبلهي كقوبن جيري هبلهن كان كوديو هيلب كودا قدي جيرين هدي أد جيسان قول كليسان قد القرى كمودان قبل كودا دميسان هدبتو ذا قوشا قنع بيدا شبيسان دادكو قبلنا حوريو قرع يالي يراندان إناقو قمونيو دقن قوري ويه إناقو قمونيو دقن قوري ويه قعشدا حنوك لي وحنوك قولي ذب أبي فلايبا وبدكيسا قعنديو قمرشدا كل نغتو قبيدي كدوميسي نين كينن مقيدة
gogol qaniinku maale guraac kaga danaysto waxaad gaxsanaysiyo gashigaad cunaysiyo xumahaad gelaysaa ruuxay ka go'an tahay gabadhaada weeyo gefkaad falaysiyo waxaad geysanaysaa galab kale ka sheekay afartaa garaariyo gaashooyin mariye waxaa iga gunaanada gebigeed adduunyaday hubin gobol gobol u qaado hablo weerar geli kara hablo geela dhicin kara hablo geesi dili kara hubin gobolnimana ahanan karay hablo talada goyn kara karta madalka niqi kara gaarashada isaga mida hubin quruxdana ka wada gobey geeskeenna mooye gay kale ma joogaan gay kale ma joogaan geeskeenna mooye gay kale ma joogaan gay kale ma joogaan laakiin waxa idin sheegaa waxa cawdan igu yeero in jeebkiina aan qaadano oo gobolka Hiiraan loogu tabarruco aniga shakhsiyan mari xaaji ilmi $500 baan yahay waxaan idin ka codsanayaa idin inaad iqoodaan oo maartay wiiga suuqaad aanaysin xoogaa ka down aad ku samaysaan waxa halkaan la joogo wiilashada Soomaalida la yaraay oo entrepreneuring waxa la yiraahdo aad ugu xeel dheer wiil maxamed xaashi la yiraahdo hadda telefishinada ka maqasheen digital economy Soomaa money digital money weeye hadda dhalinyarada waa inaan dhiirigelinaa annagana waa inuu jeebka gacanta noo geliyaa Hiiraan marka waxaan ku soo dhaweynaa maxamed xaashi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هذه الدورة اللي عليه السلام يا مكورة أوكي حاجة ويري هاي مكورة أنا كنت بحكي سؤال كبير اللي هذا one life one coin وحن هذا وفر السنة ما كنا كسر القلم ماشى الحفلة ده قرحنا بدن ولا لا الصومالية اللي هو كلمنا يو سيدو كرهتو مقالة بلوين الرهينة ورتي وضد أنت ضدك أخيارك أنت وكذا واجي أنا ما أؤمن هاي وقولنا الصومالية آدي كو متقنا ومهمسل ودد آدي قالية ولا لا استعنا أي كسر جيران ما أنت مركز ضد ما كل إنتي أو متقنا هذا مليون ضد كبضنا ضد سيدو كلا هذا مليون كبضنا أيا كو هنتي بيالي أو كو بركعي مركز ضد كريو كنا واحد آدي لوية قالنا مركز تمادرين على السمافلك يوناك لمبروم بانك قالنا ما آدي بعد أمها سنتين كسر قبل كذا ولا سنة كسر قبل كشين بانتي قبل بنا واحد لقيت دونيا أنا وهذا الله هو اللايف وحي أنا كسر تلقى لوان وقرنه وصلنا وكذي بينا لكن واحد لو باي هذوك نسيت أكلته ماله شيء يا كولا وسط عداية أوكي واحد كويا وانا أنا ومبندا لكن شاب بقول بان وهذا اللي يحب بقول $1 قياسي yes marka muhiimada loo wada yimid waxay tahay ma aha inaan qofkeena inuu waxba awoodi karin mid kastoo inaga mid ah caawa gurigiisii ilmihiisii waa u joogaan waxbay u cunayaan waxa la idinka doonay sida walaashan sheegtay inaad caruurta cuntada weegaan ka yareysaan oo marka ku yaboodaan wixii aad walaayeen ku qoodin lahaydeen kulli sida la qiimeeyay meesha waxa isku mid ah caruurta tabarucada markaan جامع شيخ أو كسر حلال أمانة بلنا أسيجنا أمانة وكنا سينا سماه شيخ إنك أمانة لا تقول كل عشرة كل يوم واحد سنة هو أنا أشكي سنة أمانة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومهدسنتهين دمانتين أنيقو كوهد لا مقع حوالة أمانة وأن إدينك مهد علينا يا إن محان كرادة كسر قيب قشان حفلة دانفر رئيسك إنو سمين ولا لهن جالية إن هيران تاسدان كجودبو وحن كوهد لا يرونتي مقع حوالة أمانة إكسبرايس وأنا ماشي أنو تاجنا هاي bilowgii arintan ayada kaalin way ka qaadatay gudiga number 1 anaga inala soo xiriireen anaga sabab wax in hoolkan la kireeyo oo kun baan bixinay ma ku ka doona hadii ilaahay ira kun iyo wax lamida waan sii joogtaynaynaa waxyaabo ka badan aan wadnaa hadii ilaahay iraado oo qorshe noo socdo ilaa xawaalada xarunteeda ilaa meel walba ah oo aan kaalin weyn ka qaadana hadii ilaahay ira si dhaqso maalmaha soo socdo وما سنتين إن شاء الله هذه كان أجر حسن الله يديك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقاسين جماعة. برنامج كنا حيوب بدن وتفهمنا وانا جبوا إن شاء الله. عمود حق بدنه بدك بدن كل صوماليات جارهان رهيران هو وصل اسكت تعبنا وحلل الريدبول برتميه ساير محاضرة. الجروب برتوالي فنانين بدنايين سيدا نقنعين الجروب برتوالي فنانين بدنايين أو فنانين وين وصالح قاسين يو أحمد نور جانجو يرك بدني لهاين وأقنعي لكن عاودين مجوجان سيد خليفة البلدوينها عاود جو ماشي دنايستو هذا أنا مركو حيران وكأرجو سنة حوجا مرنجعيلا نوجو كتيرين مركو مرنجعيلا وعيا بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين سدا كوجوكتين تايتلدا كفدسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan isugu nimid dad walaalaheen ah oo biyo ku dhex jiro oo lacagtoodii iyo xoolahoodii iyo cuntadii iyo noloshii ka tago meel cid la taagan sidee wax ugu qabanaa annaga waa noolnahay weeg walbana qofku ugu yar wax un baa soo galo sidee wax ugu qabanaa waxaan rabnaa marka qaabka inaan ka dhigno qaab fundraising waxaan isugu imaanay inaan lacag aruurino wax kale la isugu imaanin waxaa loo baahan yahay marka qof waliba oo caaw halkaym dadku way tageen mana arkin ana hadda lacag ilaa ballanqaadyada lacag aad u yar yaraa la ballanqaaday waxna waa heli karnaa gabdhaha Soomaaliyeed ani gabdhaha xukumaa horta caaw halkan way baxeen inta fadhiso waxaan u baahanahay 10 gabdhood oo horta halkan soo istaagta caawa oo $500 business siiso wax ka badan kama rabno waa mahadsanta falis halkan soo istaag hal $500 buug iyo waxa ay keentiin iyo maxay iyo magacyada qof qorto magacyada keena buug keena gabdhaha ku qora timekay keenayna ogaada waxaa la yiri meel hoo u baahan hadalku ma bogsooto caaw waxaan u baahanahay lacag inaan ururino inaan walaalahan garab istaagno inaan dad baahan baahida ilaaha qaadi kara ka qaadno inaan u duceeyno inaan waxna dhiibno aniga waxaan ahay Mariin Maxamed Jimcaale Mariin Jacayl familkayga ka keenaya iyo saaxiibadayda ka keenaya iyo naftayda keenaya 1 week waxaan keenayaa $1,000 hadduu ilaahay ka raali noqdo maanta maalinteeda amaanaan soo dhigayaa ama meesha la igu tilmaamo $1,000 aan dhiibaa falis cali balada ay ag joogto $500 bay ballan qaaday hadan khaliif aaway hadan khaliif mbaxday هذا قليف مبحذي ما هذا قليف هرت أنا إسكو حافظنا ما بحذي هذا قليف سوي استاك ناكن لعكت إنه يصيد يصيد أنا أقول بلن قاد بوق عصب كان $1 أنا أقول قرا شن بقول فلس على بلد قرا هذا قليف هاتنا ما ديبت هذا ما ديبت هذا قليف $500 boqol baan ay bixisay lacagta kalena waa soo dhameystiraysaa waa mahadsantiin haye maxaan isku qornay haye nasr qafaal luul khaliif faadimo maxamed iyo qor
$500 فردوس عبد الله يقر نصر قفال يقر لول خليف يقر قبلها يقر $500 عاو هلكا وانا ليست لبعتكم كيلي كرن ولا ليالو عقل ما سوي ما انا كلا دريرنو عقل ما أنا عبار أنت شاكين كلا تقنو حتى لما كين هالحبو روتي هالعون وحلو كيني واي ولا الباهم بيوحو أرورينيني مركا أن سمينو شن بقول كلية وصدح بقول $50 هذا حافظ هذا أنت تكتير لما قفضي عاوي ترادد 5 دقيقة كوكيني كرتا كنت كنا سداسا كويلي كرنا هذه وما سنتين يقرأ قبلهان لول خليف قر أباي يقر زارع حاج حلو يقر فاضل محمد عاوي فردوس عبد الله نصر قفال عاوي ولا ليالو هل كان سوي استاغ لعقت شنت بقول نصيه هل كان هلا قرا قبداس لعقتها laga qaado lacagta gabdhaha laga qaado hal qora gabdhaha waxa la isugu imaan lacag ragga maraa la galaya ragga lacagta lahaayna waa la sheegaa maraa la galaa annaga 20 qofood oo min 500 u baahnay waa inaan 10 kun gabdhaha caawalkan keensan oo dollar ugu yaraan مو بان وحكلا كن أنا مري حاجي already هذا $6,000 سان كويسنا صدق كلنا أنت كسر صعوتها $4 بانا ديبتي شن بقول قبل دافت $6 يسا وما سنتين سينكايا يا ذهبرتا باب شوانا يا برجي وابحا وعوام بلد وين بقر كانوا توقيا ربي وبلد وين كديق مال برار بدن ربي وبلد وين الله باسك نوغا هاي الله بلد وين بولشادر نوغو هذاك الله بلد وين كديق مال برار بدن الله بلد وين بليعديس انركا الله بلد وين بليعديس انركا بقرك نابور طيهو باسك نغا حجاب هيا ما قال مرونا waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto meeshan Soomaalida waxa gaartay dhibaato badan dhibaatada Soomaali kaliya maahan halkan ba dhibaato nagu haysata marka waxaan rabaa in qof kasta Soomaali ah oo ka qayb qaato dhibka Soomaali ku dhacaya meel kasta ay joogan intaas kadib waxa halkan isugu nimaanay maanta inaan caawino walaalaheen oo dhibka gaaray baladweyne marka waa in salaama kulligiin hal caawi umada Soomaalida UK-na waxaan ka codsanayaa please in ilmaha xabsiga ku jira oo with no reason ugu jira aan caawino oo isku nimaano oo markii lagu baahdo lagu helo waa mahadsantihiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magaalada baladweyne aad iyo aad ayaan maxaan ku raahdaa idinka mahad celinayna waxaan leenahay aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayna sida wanaagsan sharafta leh ee adiga soo qayb gasheen waxaan leenahay ilaahay maaragtay khayr ha idinku bedelo waxaan rajaynayaa inay arrintan oo kaalmada iyo isgargaarka Soomaalinimo inay halkeeda ka sii socoto aad iyo aad ayaan mahadsantihiin sidaas uu shirku noogu xiran yahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته